بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه كاني ما انتهينا ونبغى وقلت روح وجهه يا محمد. وحاولنا كسلام يا طمان ومدى في السودان والدول الشوغان والبداية جدا. وحاولنا هذا قلنا طمان شعب الصومالي. تشعر كله يدرين كيف في الشباب. وحاولنا هذا قلنا دولنا. ودرين كيف كسر شيء مثل كسر قضية حمد شوكته. وحاولنا هذا قلنا. dolayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jeeyaayay weerarkana lagu soo qaaday muqdisho salaataa kadib wafdigaa hogaaminayey waxaanu socdaal rasmiga ku soo maray dalka la yidhaahdo keni koreakari ama faranji britoria waxaanu sii maray dalka etoobiya waxaanu kala kulay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhoo fiican iyo qadarin dalka etoobiya waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan ku aragnay labadii wasiire ugu waaweynaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kaloo telefoonka lagula soo hadlay isagoo kormeer ku jira taliyaha ciidamada etoobiya oo dhan ee cusub taasina waxaa muujinaysaa qadarinta iyo milgaha soomaaliya loo hayo waxaan la kulanay oonaan ku tiro gudahood sabab ku guranay wasiirka khaarijiga ee jaad oo aanu waqti ku qaadanay inaanu ka wada hadallo qadiyadda somalilan wax badan oo waqtiina waxaan wadi muray dalka komitada keni koreakari oo dalalka afrikadu daaweyna oo madax ka yahay nin oday ah 80 dheeraada konton sano siyaasad soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yidhaahdo alpha conde ninkaasi waa nin ma aaminsan mabaadi'da hantiwadaaga ah socialismka waxaa ku dhahaa raggii usoo halgelistay inta bedelkiisa si ay xornimada uga qaataan faransiiska dhowr iyo 20 dal oo uu goystay faransiisku ayaa la weydiiyey may faransiiska kusii jiraysaan mise waa ka xoronaysaan keligood geli kuwaakali oo quran ayaa tuwaa xoronaynaa inta kale miigeeda yidhaahdeen iyagoo masii joogaynaa isticmaalka sideeda dalkii intii ka dambeysay mid walba xornimada qaatay waa axmed jinaatuule dalkii uu ka talin jiray waa arag siyaasadeed oo weyn bay leeyihiin dadka iyo oladooduba si wacan bay loo qaabilay oo lagu wareegeen dabeetana weerarkan xalay baa yimid culays badan bay meelo badan ka maran oo talyaanigu ugu horeeyo oo ahaa hormeedka cadaadka u weeraara talyaanigu ahaa ee u adeegaya qoyga muqdisho odayaas kuma dilcin shalay markuu tegay shirka afrika laba garbana wuxuu soomaaliya xaq bay leeyahay inuu dhegeysto waana arrin innaga inoo taala dalka afrikaanka walaalayaal weedha xamar ka soo yeedhay laba qodob bay daaran tahay waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguna nagan waa ciidan shisheeye uu ilaaliyo ayaa waxay maageen dowlad ilaa islamutankii xor ahayd oo sanadkii dhaqaalaheedu boqolkiiba korno oo dadkeedu 10 milyan yahay oo horumarkiina xooluhu ugu samaynaysa ayay maageeno ku yidhaahdeen sidee gurigaaga soomaaliyaad ugu casuutaa taasi waa golay ka galaan geel koreakari iyagaa iska celiyey iyagoo intii iyo ka badan baa yidhaahdeen dagaalkana iyagaa iska celin kuwaas golanta labaad waa somalilan somalilan waxay leeyihiin markay leeyihiin maxaa u casuumtay somalilan ma geydo maamuuska intaa leeg in lagu soo dhaweeyo milgahana maahee maxaa maamuuska ausiseen waxaan la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goynta intaa leeg waxa kukunfaaya hebel uma qalmo maamuuska iyo qarankaa intaa leeg uma qalmo maamuuska ah waa goynta intaa leeg waxay u bareereen waa la isweydiinaya waa laba waa rag soo wada joogay soddonkii sano u dambeeyey wixii ka dhacay dalka iyo somalilan wixii loo geystay dal xooglaal u ahan way yihiin dhammaantood garan maayo iyagoo taa hore qaray waxay tana u dareen waa ta saddexaade somalilan taariikhdooda way yaqaanaan oo meel walba ay ku qoran tahay oo way ka waxayaan
markii loola jiray soomaaliyadii hore ee berigaanu ka midka ahayd inta taariikh lagu faano miisaankeeda somaliland baa ahayd waa koy ma jirin dad hore afrikaana oo ku yimi isticmaalkii u yimid saanta caddaa baddaan wax kula seexan anagu kula seexan mayno ma jiro dad afrikaan oo yidhi dadkaaga ku dhal gabadhaadu ilmahay calooshiida kulaykada dalka iyaga ee markay foos tahay naga dad kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorriyadda waad haysaa annaga nama goysanaysa heshiis baynu ku dhahay inaad nala joogto waa 3 qodob oo Soomaaliland gaara markii isticmaalku qarnigii 18aad dabeeqadii Afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koonfureed lama wadaagto ta kale ee ugu fahmay adduunkooda marka waa halgankii dawaawiishta Soomaaliland booda ahaa oo ahayd oo tariikhda Soomaaliland oo ciidankii dawaawiishta Soomaaliland ahaa waa kii Afrika ugu horreeyay ee taariikhda soo baxayso waa saddexaad markii Soomaali beelaha haweensiisay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo salaadiintoodii maxraqooyintoodii madaxda oo Soomaali oo dhan ka xeeyay oo dawladda Ingiriiska ku qorsheeyay fariistay wax ka socday inay jirta guddiga Suudaanada iyo odayaasha salaadiintooda ka soo dheer Cabdilaahi Suudaan Cabdiraxmaan iyo Suudaan Biixi Fay oo maanta kaliya sharaad Soomaaliya baahay ee ka furmay lahayd markay Soomaali isqoonsatay ee qaranimada lagu heshiiyay isku diiday isku maqaafay wixii ka dhacaya ee hadiyada lagu haysiin ayaana lagu haysiin waa farayay dhiibada soo soo qaad oo maanta way soo jabaan ma wahay waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen markaas qodobka ay ku hudiseen Soomaaliland ma galiyeen midgaas maxaa loo maamusay anaga taariikhda soo baranaya oo tii dambeysay wixii ka dhacay ay ogaayeen سيئة واتي كفتر باي كاتا ثم يكونون يكون قرارين جديد سوماليا كانوا ينقلوا وكذا لمنا أرض بانو فقد لمنا أخبانو فقد لمنا قلن بانو فقد لمنا حديث بعضنا عدودنا فقد لمنا وهم مانتا Soomaaliland oo badmaayo Soomaali soo haweensanaysa shanta bilood ee Soomaaliland sabab maxaa loogu baqayaa Soomaaliland waxay ahayd Soomaaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyay 300 oo kun oo guri oo 200 oo kun hargeysan yihiin ayaa madaxfiiciyadii loo baraacay ee meeyay oo maydkiina fi gudahsida loogu soo noqday markaasoo dib u satay iyo ciidamada badbaadinaysa dadka cadaawada leexigan ee Soomaaliland oo qoraalada dawladii qabiya afreena ay sameysana iyadoo ay soo gurman bay ka heshiiyeen oo qoraalada meesha ugu tagtay oo ka muuqan qaran iyo xoog u dhigtay aan maanta ciidamada karin dhalinyaro haday awliyaashin badar ku saxeexeen haday awliyaashin Ingiriis oo adduunka waxay wada diyaariyeen ciise dafaac ka dhigteen haday awliyaashin tiida Islaamka ka soo dhiciyeen wadinka baqmaan maanta idinka ragga Soomaaliya dhalinyaraha beerashadii ay shaqada gaas oo galeen waxay Soomaaliya inta oo qorin harbo waxay nafteeda waa ku naqalayaan leeyahay وأنا ما تنسى عرض الله كذا كسب حقيقة قدر فيها هذا كسب حرام في العربية ساد يترى هذا إلى يعني كل في جوه مالته وهذا يبغى يسوي لي كم وين ما هي يترى القدرية والمياه تناسب وياه قالوا ما أوران كسماء ما أوران بيدنا ما أوران قبل ما أوران مقديش ما أوران سوي ما أوران كرافة ما تشوف ما كانت ترسل حسين سوي ما كانته وهذا سوق الله والله من الله من دلالة الله متحسن كل نساء والمسلمين دي قرنا شو داتي حجرا شو بقولي وهي قابع دعي وحكوه الإسلام مركا من يوم يوم طلع على مرأة قاضي وحبدها جوشينه وحكوه حجرا الإسلام وقال في سوق سوشيا ومرد سوق عطاقر مدلا وحكوه تلو يسيب هذا يسيب هذا وحنا أنا شينه محل كل شينه هذا المليون يا هذا كنتيجة يا هذا المدة بسنة وحول سويدية ما تيجي واحد عين إلى هذا من الضحك له دوسة غير له ما قالت هذا سوى لا يتعامل هذا ساتك لا يرجع موتني سوى بنوسه
waxaana guudaysatay inay qadiyadeena keento oo eeyuga madaxweyne alfara waa ku bilaabay hiila waa ku haystaa afrikada galbeed arrintaa waxay yeeltaanasho ninka arrintaa galay diinta islaamka waa la fadhisay iyo diinkaadiyo isku afma mihin isku dhaqan ma mihin faransiis bay ku hadlaan ingiriis bay ku hadlaan isma gaadho isma dhex galo kelmadid iyo dhaqan iyo tod iyo seediixii ahna waxaasuu loo quuda baka warrama lama cadli baka warrama lama cadli waxaan kusoo gabagabeynayaa somaliland guud iyo horumar baan rajeynayaa laga boqon maayo fadhiga kici mayno damarciina wadana codaysu cudurdaadana muqornaa kaltaasoonahay tawayaarina waa kala weynahay berrito wiilkaana xisaab safro kala baxanaa caalamkaa kuwa badan baa xigi adigu ciqaadka u dacdaysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu